weerarkii qaraxyada iyo rasaasta culus ku bilowday ee lagu qaaday hotelka Xayaad ee magaalada Muqdisho xalay fiidkii ayaa ilaa iyo iminka soconaya oo aan wali la afjarin saraakiisha ciidamada iyo laamaha amniga qaybahooda kala duwan ayaa gudaha hotelka ku sugan waxa la sheegay oo wararku qaar ay tilmaamayaan in xalay gudaha ay u galeen hotelkaasi ilaa iyo 14 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasi oo wali qaarkood ka dhex dagaalamaya gudaha hotelka wadada iga dambaysa idin muuqanaysa waxa ay tagtaa hotelka Xayaad waxayna u leexataa dhinaca wadada controlka laga hubiyo airportka ee magaalada Muqdisho halkaasi oo ah aaga laga galo hotelka Xayaad ee magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan sida booliska nisa iyo sidoo kale kuwa CID-da ayaa ku sugan goobta ay ka dhacday weerarka iyo sidoo kale qaraxyadii dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen hotelka Xayaad ee magaalada Muqdisho ilaa hadda wax la xaqiijinaya amniga in kasto rasaas xoogan ay ka dhacayso mararka qaar gudaha hotelka sidoo kale waxa qarxaya miinooyin iyo sidoo kale waxyaabaha qarxa oo la sheegay in ay gudaha hotelka ay ku jiraan sidoo kale waxa la tilmaamayaa in raggii gudaha hotelka galay sidaad maqlaysaan ba iminka xabada ayaa dhacaysa waxaana raggii gudaha hotelka galay la sheegayaa in wali qaarkood ay ka dhex dagaalamayaan ciidamada amniga ayaa wali wada howlgalka lagu xaqiijinayo amniga hotelka oo la doonayo in la soo afjaro weerarkan oo saacado badan qaatay ayaa saameyntiisa laga dareemayaa guud ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan wadada kilometer 4 oo ah wadada halbowlaha oo ah magaalada tan Muqdisho taasi oo dabcan isku socodkii gaadiidka dadka iyo ganacsiga intaba hakad iminka uu ku jiro halkan aan taaganahay oo ah isgoyska lambar 4 kaabigana ku haysa hotelka Xayaad gudaha loo galay ilaa iminka kooxihii gudaha u galay ay ka dagaalamayaan ayaa loo ogolayn in dadka iyo gaadiidka ay isticmaalaan wariyaasha iyo sidoo kale wardoonayaasha ka tirsan warbaahinta Muqdisho ayaa halkan ku eeg oo loo ogol yahay inay inta ku nagaadaan laakiin looma ogolo dadka caadiga ah in ay gudaha u galaan ama wadadan ay maraan ama ay isticmaalaan gaadiidkana sidoo kale ciidamada ayaa u diidaya in wadadan ay isticmaalaan maadaama howlgal xoogan uu ka soconayo oo ciidamadu amniga ay ku xaqiijinayaan saraakiisha laamaha amniga waxa ay noo xaqiijiyeen in dad u badan mas'uuliyiin iyo sidoo kale shacab la xaqiijiyay in laga soo badbaadiyay gudaha hotelka sidoo kale waxa jira dhaawacyo iyo dad dhintay oo gudaha hotelka wali ku jiro oo ilaa iminka ay suurtagali laadahay in banaanka loo soo saaro saraakiisha waxa ay sheegeen in howlgalka uu soconayo howlgalka markii uu soo idlaada kadibna lala hadli doono warbaahinta si loo xaqiijiyo xogta rasmiga ah ee halkan ka jirta wali rasaas ayaa gudaha hotelka ka dhacaysa amniga lagama warrami karo qaabka iminka uu yahay wali xaaladdu ma degana wararkan iyo wixii ku soo markaan fahmay arkay fiidiyoga weerarka si aad baan u qoraday runtii hadalkan ka sii qoradan wuxuu ahaa hadalka tiri mustaqbalkaygu uu baabay mustaqbal dambana barajeenayo waxaan ku leeyahay sister mustaqbal waad leedahay aniga oo ah laandheera isaaqa waliba habar awala waliba Sacad Musa waliba labka Sacad Musa ka sii reesamatar aniga ku gursanaya magarasa oo soo bareeray wixiina niyada ka saaraya forget waan siluusinaya magarasa ya marka waxaan ku leeyahay meerkaagu soo sheegintii ya soo sheeg